haddaba markaad doonayso inaad lacag kala baxdo $10 ayaan kusoo shubtay ayaan gaarsiiyey $22 baankii 57 marka waxaad doonaysaa inaan hadda ka saarto $10 ayaan doonayaa inaan ka saarto marka waxaan leeyahay withdraw kadib withdraw markaan tago wuxuu leeyahay waxaan kugu saaranaa lacagta perfect money-gii aad kusoo dhigatay waxaad ka saaranaysaa $10 waad arkaysaan waxaan soo dhiganay lacag $10 kuwan marka hore aan ku eegay may gelin laakiin failed waan kuna guuleysan waa $10 ayaan soo dhigtay oo aan hadda ka saaranayo $10 lacagtay ku jirtaa waa $22 marka $10 ayaan ka saaran doonaa waxaan uga hari doonaa 12 senti marka waan sii wadi doonaa marka hadda confirm ayaan leeyahay wuxuu leeyahay koodkaaga geli koodka ayaan gelinayaa koodkaas koodkaygu waa kaas waa qalad buu leeyahay marka kood waxa jiray uu igu diray gmail-ka marka koodkaas ayaan soo koodkan uu weydiinayaa waa kood aan anigu samaystay ama password xagga hoose marka foonka buuxinaya aan u samaystay marka kadib waan geliyey wuxuu leeyahay passwordki markaan geliyey request san lacagtaas waxaa loogu diray perfect money-gaaga marka waxaan eegi doonaa bal perfect money-geena in lacagtaasi ina soo gashay perfect money-geena wax lacaga may soo gelin weli marka waxaan leenahay bal refresh ayaan leenahay bal ina halkan wax kala qoraala kusoo dhigo please wuxuu leeyahay incomplete wax la dhamaystirayaa lacagtaas waxoogaa kadib ayaa la dhamaystirayaa marka lacagtaas haddii lacagtaas waxay kugu soo gaari doontaa buuri 48 saacadood kadib ayaa lacagtaas kusoo galaysaa akoonkeenana lacagtaas way ka baxday marka $10 waxayna soo geli doonaan 48 saac kadib funding show be received with waxay kusoo geli doontaa 48 saac hours marka 8 saac kadib marka ayna soo gasho ayaan perfect money-geena oo hadda maran ku xaqiijin doonaa